maanta magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan soo gaaray gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Maxamed Xuseen Maxamed Carab gudoomiyuhu safar shaqo uu maqnaay magaalada Jowhar ee caasimadda dawladda Hirshabeelle iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena hooyo Soomaaliya gudoomiyuhu maalmaha halkaas uu joogay waxa uu kulamo la qaatay madaxda dawladda Hirshabeelle ugu sareysa sida madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guulaaw Xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed gudoomiyuhu sidoo kale wuxuu kulamo muhiim ah la qaatay maalmaha halkaas uu ku sugnaa hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada horumarinta guud iyo taageerada bini'aadanimada gudoomiyuhu maanta wuxuu ku soo laabtay magaalada Beledweyne waftigiisana waxa kamid ahaa isduwaha cusub ee maaliyadda gobolka Hiiraan Xuseen Cabdi Jimcaale Diini iyo qaybo kamid ah maamulka gobolka gudoomiyuhu markii uu soo gaaray xarunta maamulka wuxuu shir hordhac la qaatay qaybo kamid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka heer degmo iyo heer gobol wuxuu ugu mahad celiyay shaqadii sida quruxda badan ee u sii wadeen maalmihii uu ka maqnaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyuhu ahmiyadda guud oo safarkaas u galay waxay ahayd horumarinta guud ee gobolka iyo muxuu ahaa sidii wax loogu qaban lahaa xaaladan gobolka guud ahaan sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu ahmiyad gaar ah u siinayaa guud ahaan gobolka Hiiraan xaaladiisa horumarineed sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu diiradda saaraya in amniga guud ee gobolkan la sugo iyo ka hortagga iyo la dagaalanka ururka argixisada al-shabaab marka gudoomiyuhu maaragtay wuxuu ugu baaqay guud ahaan bulshada gobolka Hiiraan in maaragtay la iska kaashado wada shaqaynta amniga iyo la dagaalanka kooxaha nafal caariga argixisada al-shabaab iyo horumarka guud ee gobolka